السلام عليكم ورحمة الله. su-aashan waxay leedahay maxaa u aragtaa habeenkii cashada la cuno haddaa casheeyo ama waqti dambe cashada aan cuno maxay igu kordhinaysaa, maxay igu samayn karaysaa. Mida kalena sidee u aragtaa soonka haddii aad soomo hilib ma iga dhacayaa. Horta waa laba su-aalo wanaagsan. Su-aasha koowaad waxaa waaye cashada micnihii waa cuntada kaliya markaa jirkeena ugu baahnayn aan isticmaalno, maxaa yeele waa seexanaysaa jirkaaga soo maaha, marka jirkii energy uma baahno ama wuxuu ku shaqeeyo. Cuntada wax loo cuno energy inaa jirkayaga uu ku shaqeeyo, energygaas ayaa cuntada loo cunaa. Marka cashadana waqtiga la casheenayo waxaa waaye waa seexanaysaa, energy ma u baahnid, cunto yaroo fududaa u baahan tahay. Midda kale haddii aad tahay qof bodybuilder ama qof jirka dhisa, cashada muhiim ayay kuu tahay, laakiin ma aha inaad carbohydrate cuntid. Carbohydrate waxaa ka wadaa bariis iyo basta inaad cuntid ma aha, maxaa yeelay waa la store gareynaya, waa la xareynaya bariiska iyo bastada jirka marka waqtigaa cuntid. Midda kalena su-aasha waxay tiri soonka ka waran. Soonka micnihii waa soonka keena ramadaanka ama micnihii soonka sunnooyinka. Sidee u aragtaa haddii aad soomo hilib ma iga ridayaa. Horta program dhan oo la dhaho waxaa jiro intermittent fasting. I don't know inaa mar hore maqasheen, video horena waa ka hadlay. Waxaa la dhahaa intermittent fasting waxaa waaye program la soomo diet waaye. Dad badanaa sameeya dietkaas. Programka waxaa keenay nin la dhaho Mark something, I don't know magaciisa hilmaa, Mark Hebel, laakiin websitekiisa waxaa la dhahaa leangains.com. Programka waxaa caan ka dhigay labada mataanaha YouTube channel kale, Hatch Twins ama Fasting. Magaca channelkooda waxaa la dhahaa Fasting Twins, waa kuwaas oo walaalaha sooma. Marka channel dhan oo caan ay leeyihiin ilaa 1 milyan ku dhawaad leh oo soon kale loogu talagalay soonka, laakiin ayaga soonkooda ma aha keena camal ramadaanka. Way soomaan laakiin waxay cabaan biyaha cadaanka bas la ogolyahay soonkaas inaa cabtid. Marka waxaa waaye waqti gaar ah soomaysaa, waxaa soomay kasoo qaad 5 galabnimo bilaabanaysaa ama 6 ama 8 waqtigaa rabtid. Adi waxaa la rabaa inaad 6 iyo 10 saacadood soontid, waxba cunaynin, biyo un cabeysid, wax calorie dhan inaa cunin. Marka waa program wanaagsan, waa samayn karaysaa haddaa rabtid, laakiin waxaa la rabaa inaa waxba calorie aadan cunin. Midda kale soonkeena ramadaanka haddaa rabtid kaas uu wanaagsan yahay, ajarna waa ka helaysaa, hilibna wuu kaaga dhacayaa. Aniga waa sameeyey soonkaas, hilib badan wuu iga dhacay wallahi. Waxaa waaye waa diet ugu wanaagsan, ma ku dhibayo. Waqti gaar ah cuntada ka maqnaanaysaa, waqtiga cuntada imaadidna ilaa 6 saacadood 8 saacadood haystid waxaa rabtid cunaysaa cuntadii jirkaaga maalinta loogu talagalay. Marka soonku wuu wanaagsan yahay, si fiican hilibna wuu kaa ridaya haddaa rabtid. Haddaa kalena waxaa samaysaa on dietka normalka caadiga ah. Waxaa filaya su-aasha inaan ka jawaabo. Please subscribe haddaa channelka cusub tahay, like asxaabtadan la wadaag.